السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وادن سلامي وحان إلهي وين واحد كأنك جرجينيا عافيماد وناكسن عمر دير عبادة سجن سيدان إذن كقبل قاضي وحان جعل استمانت إنان إذن لو ذاقو وحير أو كوبان أو أن سلاي هاي محي هيتو ووح حسوسين إن شاء الله مرك كسر دوادا مركزتو قعمة فرن channel كسانفع هادي aad nagu cusubtahay fadlan la wadaag dadka kale subscribe na samee adigoo aad u mahadsan si ilaahay kaaga abaal mariyo insha Allah soo maanta waxaan rabaa idin la wadaago hal wax oo aad weliga ka shalayneenin hadii aad sameysid ama aad dhahdid halkaas wax waa maxay way badan yihiin waxyaabo badan laakiin ani halkaan waxa maanta rabaa inaan sida idin dhahay maalintii ama habeenkii waqti kamid ah hal wax oo aan rabo diirad inaan saaro 24 hours kaas gudihiisa 24 saacadood gudahooda aan focus ka saaro maalin walba idin la wadaagi doona insha Allah soo maanta waxaan diiradda saaro waxay ahayd hal wax aadan ka shalaayi doonin hadii aad sameysid ama aad dhahdid soo halkaas wax muxuu yahay waa hal wax oo ah naxariista being kind inaan naxariisatid soo naxariista halkee ka imaanaysaa kulligan waa ognahay meesha ka imaado sida u naxariisanan waa ognahay ilaahayna ma aragtay waa tuu maxay tahay naxariista soo waa qasab waana muhiim anakan inaad dadku naxariisano qofka koowaad ee u naxariisanaysid waayo bal isweydii qofka koowaad ee u naxariisanaysid waa naftaada because markaad dhimatid waxa koowaad ee lagu weydiin doono waa naftaada mid kale Soomaalidu waxay dhahaan tiisa daryeele ayaa tu kala ku daro soo marka adiga hadaa naftaada u naxariisatid waxa noqonaysaa qof dadka kale u naxariisto marka siyaabo badan ayaa jirto dadka loogu naxariisto xasuusin in way waxaan ma aha waxa aan idin baraayo ogahay kulligii waa ogtihiin baa just waan soo xasuusinaya soo waa bini aadan aan ahay bini aadankan way iloo badan yihiin soo marka qof kasta wada wax yar mar ku soo xasuusiyo ma aragtay waxa hore u taqaanay oo kale ama aad u qabatay markaas oo kale waxay kula noqonaa wax fresh ah so we freshening up bes marka insha Allah so siyaabo badan ayaa jirto aad ku noqon kartid qof naxariis badan laga yaabo qof inuu jiro u baahan in aad maxay ahayto hadal naxariis dhahdid laga yaabo in aad naftaada ee kugu kacsaneed maalintaas ama aad xanaaqsaneed ama xanuunsaneed ama ma aragtay siyaabo kale tabo ee adiga wax kaasi ahaayeen balse qof kale marka aragtay adiga kaasi daran taada inaad laqtid oo qofkaas u naxariisatid oo hadal fiican oo qofkaas rabo aad dhahdid niyada u dhistid maskaxda u dhistid haduu xoolo i gacan rabana siisid soo markaas halkaas wax weliga ma ka shalaynaysid labo waxa weliga uga shalaynaynin sadaqana way ku tahay aakhir ilaahay insha Allah uu ka abaal marin doona adduunkana qof kasta wuxuu geesto uu helaa waxa aad qofka siisid ahelesa so basically hada dadka asxaan u fashid adina maalin ee ka taalo bini aadana tahay algu caawinaa insha Allah so marka wuxuu ahaa maanta xasuusinteena naxariista being kind so waxa marka aad muhiim u ah in aan mar walba u naxariisano kow nafteena si aan u noqono dad tiisa daryeelaato kala ku daro so naftaada si ugu naxariisanaysaa fakar xun inaad iska dhaadhicinin qof kasta wuxuu ku soo sheego qaldan inaad aaminin fariin kasta oo WhatsApp lagu share gareenayo dadka naxdin gelinaysa inaad dadka kale u sii share gareenin in kasto information tahay mararka qaar laakiin waa inaad ka fiirsatid sababtoo ah waxa laga yaabaa qof inaad wadnaha joojiso ama ka naxdid oo ka walwalgelisid ama action fiican oo qaadan laha aad ka hortagtid siyaabo kale oo badan jiro caruurta waxa ugu muhiimsan ee aad ugu muhiimsan oo ina aad ugu naxariisanataa waa caruurta sida ognahay nabigeena kaleey salaatu salaam caruurta soo jeclaa ugu naxariisan jiray marka caruurtana waa ogahay ma dhib yaro balse wax walba wanaagsan waxay leeyihiin tacab bacda raaxa soo marka insha Allah waa ogahay saacado badan 24 hours hada guriga ku xiranahay shaqo badan ay naga rabaan insha Allah video kala idin soo diyaarin doona aan sida aan ilmahayga wala macaamiltama iyo timetable ka isticmaala hadii ay baha awood la idmo insha Allah soo marka insha Allah ha iloowina inaad naftaada u naxariisatid nafafka dadka kale u naxariisatid
waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulan dambe oo xiiso leh insha allah.